madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo safarkiisa uu ku tagayo magaalada Baydhabo ay ku weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin kale waxaa muddo 2 maalmood ah oo ku sugnaan doona magaalada Baydhabo uu ka qayb galaya shirka madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka kaasi oo inta uu socdo looga arrinsan doono arrimo badan oo muhiim u ah dalka sida nidaamka cadaaladda Soomaaliya doorashada soo socota iyo qorshaha amniga qaranka sida madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Puntland TV u sheegay ka hor inta uusan ka dhoofin airportka caalamiga ah ee magaalada Garowe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxaan dhoofaynaa aniga iyo wafdi la socdo oo ka tirsan golaha xukuumadda magaalada caasimada ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo halkaas oo ka dhici doona shir la maalmood soconaya oo laga hadlayo shirka amniga qaranka ay soo imaanayaan madaxda qaranka iyo dowlad goboleedyadu shirkaas wuxuu muhiim u yahay nabadeynta iyo xasilinta Soomaaliya ajendayaal badan baa laga hadli doonaa oo ka mid yahay nidaamka cadaaladda Soomaaliya doorashada 2020 amniga iyo xasilinta dalka ajendayaalahaas ayaa muhiim bay u yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo qarannimada dib u soo celinta qarannimada Soomaaliyeed insha Allah shirkaas markuu dhamaado loo bari ka bacdina waxaan rajeynayaa inaan ku soo laabto wadankeena oo nabada intaan maqanahay waxaan rajeynayaa in aan ku dadaalo nabadgelyada iyo xaqiijinta sugitaanka amniga Puntland insha Allah. Maxamed Bilagele warbaahinta dowladda Garowe.